الحياة يلوح مع القرآن حين أعيش عبير الوجد منه يفوح عبير الوجد منه يفوح حياة القلب في القرآن سعادتنا مدى الأزمان وفيه الخير للإنسان ويطوي عثرة المجروح من الآيات والتفسير ويسقي العقل والتفكير يواكب واقع التغيير يشيد بالوئام صروح صم بكي عمي فهم عمي فهم لا يرجعون. المادة اللغة العربية الموضوع أسماء الإشارة هذا للمذكر القريب هذه للمؤنث القريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا waxaan aad ugu faraxsanahay markiiskan oo laga bilaabo Gaaris oo aan u qabo inuu ka qayb qaadan doono tarbiyanta carruurta iyo barashada diinta Islaamka iyo luqadda Carabiga. waxaa la ii sheegay meeshan in lagu tababari doono ardayda da'du u dhaxaysa 6 sano ilaa 15 sano oo la bari doono Quraanka Kariimka iyo luqadda Carabiga iyo تجويد iyo sida kale oo quraanka loo akhriyo. waxaan kaloo ku faraxsanahay meeshan in la suubiyo qorshe ah in lagu tababari karo ama ay ku tababaran karaan dadka waaweyn ama qof kastoo da kasta waxa noqday oo rabo inuu barto luqadda Carabiga. runtii anaga haddaan dad muslimiin ah waa fursad aad u wanaagsan oo meeshan uu sheekh ka furay. Allah u barakeeyo. waxaan ku dhiirigelin dadweynaha reer Gaaris in carruurtooda xagga barashada meeshan ay u danayaan in carruurta ay keenaan. dadka waaweyn oo rabaan inay luqadda af Carabiga bartaana ayaga naftooda inay meeshan ay imaan karaan oo fursaddaas ay u furan tahay. waxaan ku dhiirigelin maamulka meeshan ka jiro in ay isku dayaan in ay ka dhigaan integrated school oo lagu barto sakulaga caadiga ah oo tacliinta maadaama carruurta da'da u dhaxayso ay yihiin kuwa iskuulka dhigtaan. haddii meeshan hal dalad hostel ay ku baran karaan maadiga caadiga ah iyo Carabig iyo Qur'aan iyo tarbiya kulligoodba haddii lagu hoos bari karo runtii fursad weyn bay u noqon waalidiinta. sababta ay tahay marmarka qaarkood hataa dadkii ninkii raba inuu waxaasoo kale maysan jirin meel saan oo kale ah ama hadday jiraan oo ku yaryihiin. marka runtii waan u hambaliyeen Dr. Yaxya iyo maamulkiisa iyo dadka hadda waalidiinta carruurtooda meeshan ku aamineen. waxaan kaloo leeyahay rag iyo dumarba ninkii arrin diin af Carabi iyo diinta Islaamka wax ka baran raba inay meeshan ay jirto oo ay ka iska diiwaangelin karaan. aad baa u mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأنيقو دكتور يحيى سيد يوسف maamulaha markaska cusub ee laga furay magaalada Gaarisa gaar ahaan Buul Xagar ee la yiraahdo markas tartiil للتعليم oo la furay xafladii iftitaax la sameeyay bisha markay laba ahayd bisha koobaad labadeeda sanadka 2020 markaska haddaan wax yar kooban idinka sheego wuxuu u qaybsamaa 3 qaybood oo markii waxyaabo badan diraasad badan aan sameynay aan u aragnay inay baahi ka jirto qaybta koobaad waa quraanka baritaankiisa oo si tayo leh xagga xifdiga iyo xagga tajwiidkaba ardayda la barahayo iyadoo ay la jirto luqada carabigana in la barahayo waxaa la rabaa ardayga inuu quraankana xifdisan yahay la xifdisiyo luqada carabigana si fiican ugu hadlo oo isagoo quraankana yaqaan luqada carabigana yaqaan uu markaska ka qalin jabiyo qaybtaasi quraankii luqada carabiga isku laran waxaa weeye da'da carruurta 6 sano ilaa 15 sano waxay joogayaan markaska 1 saac ilaa 12 saac waxaa loo diyaariyay macallimiin tayo leh oo mar walbana la tababarayo si joogto loo tababarayo waxaa kaloo loo qaybiyey wiilal iyo gabdho fasalkana gabdhaha ku jira fasalka kalena waxaa ku jira wiilal baa ku jira marwaxad baa loo sameeyey fasalada gool fiican baa loo dhigay nadaafadda waa laga dadaalayaa meel ay ku faraxshaan markay musqusha ka soo baxaan baa loo sameeyey iyo markay cuntada cunaan baa ay ku faraxshaan sooban loo diyaariyey qadada waxaa loo karinayaa cunto tayo leh aad loo habeeyey waxaa lagu dadaalayaa oo kale oo ilmaha xoog badan la saarahayaa tarbiyadooda sida ay muxuu ahaa adkaarta ugu dadaali lahayn salaada ugu dadaali cibaadada ugu dadaali waalidka baarka ugu noqon lahayn iyaga laftooda ay isku u tacaamuli lahayn tacaamul wanaagsan iyo wada dhaqan wanaagsan intaasoo dhan baa lagu dadaalayaa qaybta labaad oo ah carabiyada luqa carabiya barashada luqada carabiga oo aan iyada ku xidhnayn da waxaa weeye waxaana muxuu ahaa xoogga la saarayaa sida loogu hadli lahaa luqada carabiga iyo qoraalka carabiga inuu qofku qoran karo hadduu risaalo dambe inuu qorto taasina waa niska dambe maalintoo dhan ma aha niska dambe weeye qaybta saddexaad waa qaybta tababarka macallimiinta iyo macallimaadka gabdhaha macallimaadka ee waxbara ardayda waxbara iyo macallimiinta oo laba qaybood ah qaybta madaarista iyo qaybta qur'aanka arrintaana lafteeda waxay u qaybsantaa laba qaybood macallinka hadda rabo inuu macallin noqdo waa la diyaarinayaa oo waxaa loo samaynayaa koorsooyin kala duwan iyo macallinka marka hore oo macallin sii ahaa oo u baahan wax yar oo muxuu ahaa kabisa u baahan isaga dawlooyin waxaa la siinayaa kala duwan oo duruqu tadriis iyo sida uu ardayda ula tacaamuli lahaa sida waalidiinta ula tacaamuli lahaa sida uu u diyaarin lahaa darsigiisa sidoo ardayga darsi u gudbin lahaa sidoo kale sidoo ardayda u tawjiihin lahaa sida uu u jeclaysiin lahaa waxbarashada diinta islaamka ardayda u jeclaysiin lahaa waa la barayaa haddana waxaa soo hormartay mar dhexdeeda inay dowladda ugu horreysay lagu sameeyey markaska oo macallimiin isku jir loo sameeyey qaybta macallimiinta qaybta diinta ah waxaa loo diyaariyey hool muxuu ah marwaxado leh oo projectorna waa loo sameynayaa si fiican u muxuu ahaa u qalabaysan baa loo diyaariyey markaskan wuxuu soo dhaweynayaa cid kasta oo danaynaysa qur'aanka in la barto luqada carabigana la barto luqada carabiga waxay u adeegaysaa qur'aanka iyo kitaabka qur'aanka waxay u adeegaysaa sunnada iyo diinta culumta diinta oo dhan bay u adeegaysaa sidaa darteed qof kastoo danaynaya inuu qur'aankana barto si fiican u barto luqada carabigana barto yaa markaskan wuu soo dhaweynayaa waxaa kaloo uu soo dhaweynayaa macallimiinta rabaan in ay gutaan waajibkooda si fiican u gutaan oo si fiican oo tayo leh u baraan ardayda wax u baraan doonayaan macallimiintana wuu soo dhaweynayaa waxaa kaloo uu soo dhaweynayaa maraakiista kala duwan macallimiinta iyo macallimaadka u joogaan in ay halkan ka tababaran karaan ama ku tababari karaan macallimiintooda waxaa kaloo la soo dhaweynayaa hooyooyinka iyo hadhow waxaa la samayn doonaa dowlooyin oo qoysaska loo samayn doono iyagana waa la soo dhaweynayaa dhammaan dadweynaha ku nool Gaarisa waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo ammaano iyo dadaal iyo xil weyn oo la iska saarayo carruurtooda in wax la baro
marka waxaan kula talinaynaa inay keensadaan markas tartiib carruurtooda ay keensadaan. hadda waqtigan xaaliga way socotaa, diiwaangelintu way socotaa, weli lama joojinin. marka waxaan codsanaynaa inay soo degdego qofkii raba ama ihtimaam siinhaya ama danaynhaya markaskan isaga ah inuu soo dhowaado. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.